aad baad u mahadsantihiin bahda miidiyaha saxaafadda barnaamijkan maanta aanan kugu yeernayna waxa weeye dhowr qodob ayuu ka kooban yahay. waxaan rabaa awalan inaan mas'uuliyiinta halkan fadhiya heer siyaasiyiin iyo heer wasiiradii dowladda Jubbaland oo aanu saaka halkan ku casunnay guddi ahaan kadib markii uu madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan uu soo saaray wareegtadan degdega ah oo ku magacaabayo guddiga kan oo isugu jira xukuumad iyo siyaasiyiin hore rugcadaay oo gobolada tan u dhashay. arrinta saaka aanu ka hadlaynaana waxa weeye sida aad la socotaan waxaa ka dhacay dalka Soomaaliya guud ahaan abaar baahsan oo dad iyo dunyo midnana aan maantay meel ay joogaanba ee dhibaatada gaadhay ayna ahayn mid ay ku fulan yihiin ummadda Soomaaliyeed heer maamul iyo heer dowlad federaal. goboladana dhammaantiin waa la socotaan. waxaan maanta marka rabnaa si gaar ah inaan uga hadallo gobolada ay ka kooban tahay dowladda goboleedka Jubbaland oo Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado in aanu caalamka dowladda federaalka ah ummadda Soomaaliyeed dabad iyo gudo meel ay joogaan jaaliyadaha kala gedisan ganacsatada Ilaahay wax siiyay shirkadaha ganacsiga dhammaan waxaan rabnaa ummadda u diirnaxaysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka shacabweynaha ee ku nool Jubbaland in aanu baaq halkaan uga jeedino baaqaasoo u kooban laba qaybood. qaybta koobaad waxaan rabnaa inaan ku wargelino saddexda gobol ee maamulkaanu ka soo jeedo inay ku habsatay abaarta Soomaaliya ku habsatay dad iyo dunyo waxay ku jiraan xaalad adag oo aan daawo lahayn oo aan biyo lahayn waxaana u dheer colaad. ummaddu waxay ka ducaysataa Ilaahay coliya abaar baa naga hayo annaga labadiiba waa nahayaan. maantay waxa weeye abaarta dhacday wabiyadii waa gureen dhulkii daaq ma leh cudurku waa u dheeryahay oo xanuun baa ka dilaacay. isla mar ahaantaasna waxaa dhacay nimankii nabadiidka ahaa ee Soomaali oo dhan dhibaateynayay gaar ahaanna gobolada Jubbada aad u joogay iyo gobolka Gado waxay sameeyeen dadkii inay magaalooyinka aadaan oo baadiye biyo u doontaan waa diideen. halligna waxay ka dhinteen intaad murtad meel u joogo ku dhiman lahayd meesha muslim ku dhimo iyagoo raba inay dadka dhameeyaan. marka col iyo abaar baa sidaa ugu dhoon. waxaan rabnaa marka dowladda Jubbaland waxaanu annagoo ku hadlaynaa afkeedii guddiga kan halkan fadhiyana uu matalayo dowladda Jubbaland golaheedii xukuumadda iyo madaxweyne ku-xigeenadii dhammaantay waxaanu rabnaa inaanu caalamka u jeedino abiilakan oo aanu ku leenahay waxaanu caalamka ka codsanaynaa hay'adihiisa maxalliga ee hadda ka shaqeeya dalka gudihiisa iyo kuwa dalka dabadda iyo dowladaha deeq-bixiyiinta iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaanu abiilkan ugu jeedinaynaa ummadda ku dhaqan Jubbaland inay ku jirto xaalad aad u adag. Ilaahay baa ka bixin kara laakiin waxaanu codsanaynaa in lala soo gaaro gurmad degdeg ah oo daawo leh oo raashin leh oo biyaha oo ah shayga kaliya oo laga maarmin leh waxa laala wixii mucaawinaa loo heli karo. sidoo kale waxaanu rabnaa Ilaahay dadka uu wax siiyay ee dabadda iyo gudaha ku nool ama ganacsato ha ahaadeen ama shirkado ganacsada ha ahaadeen ee u dhashay deegaanada tan waxaanu iyagana abiil ugu jeedinaynaa inaanu ka helo gacan oo wixii Ilaahay siiyay waxay ummadda uga gargaari karaan inay ku soo gargaaraan. waxaan kaloo rabnaa inaanu halkan ka jeedino oo ummadda reer Jubbaland dhammaanteed ciddii kari karta inaanu maalinta Jimcada iyo Sabtida iyo Axadda haddii Ilaahay inoo kaso inaanu soonno waa sunno inaanu soonno oo Ilaahay barino. maalinta Isniintana inaanu tukanno salaadii roobdoonka ahayd oo aanu Ilaahay uga baryayno ummadda tan dhibaataysan
إلهي إسقى قعنوين إنه دبعت هذا كبحيو قلوبتنا عن مدينه إلهينا إنه مدع وقلبنا ووضع الصعود إلهينا نوبر إنه مدع لبدا أسقط عن رمنا إن نسوي شيء إنه وحن كعد سننا غير شبلان سيد عدد واحد قفكي $1 هلكرة قفكي بويد بيا هلكرة قفكي بقول كنا الصومالية هلكرة قف كست أو غير شبلانه وحو بحيه ويريه معهن وحوي قلبك حق الشدود هلك $1 إنه مدول هالكيسو وحو قبان كرو إنه كاسو وكفل لان كرو $10 عاد بحسا أديكنا آخر إلهي إنه كاقدق يو أجر كاسين يو أدوكنا أدكو قودون يسو walaalka dhiban oo aan ku soo gaari karin oo dariiqana cado u fadhiyo ilaahay muxuu ahaa qadartiisna abaar iyo cudur ka sheeganayo oo hadda dhibaatadiisu sheegan tahay waxaan jeclahay inaan u hambeeyo siyaasiyiinta iga dambaysa wasiirada iyo mas'uuliyiinta kaleeto waxaan mar kale ku celinayaa ummadda Jubbaland ku nool walaalayaal meel aynu joognaba u gargaar dadkaaga aynu isku tashanno haddaad bannaan joogto walaalow wixii aad kari karto ku soo biiri walaalaha dhibaataysan haddaad gudaha joogtana u qoondee waxay la soo xiriirayaan guddiga halkan fadhiya oo loo magacaabay oo xukuumad iyo siyaasiyiin ka kooban ayaa wadi doona hawshatan iyaga ayaa loo xilsaaray mas'uuliyadeeda cidii wax bixinaysana halkan bay ku soo adres garanaysaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo xaruntoodii ah guddiga kan hawshan fulinaya ninkii wax bixinaya jazaakallahu khayr baanu leenahay waanu soo dhaweynaynaa kii banaanka jira akoon baanu siin doonaa barnaamijku maanta kaliya maahan ilaahayna waan baryaynaa oo qeeladeeda waan gaarsiinaynaa dadka iyaga iyo dawladda federaalkana waa gaarsiinaynaa waxaan rajaynayaa inay intaasu abiil ahaan ay meel ay joogaanba ay gaaraan wiiga soo socda miidiyaha oo runtii lafdhabarka ka ah hadday shar tahay iyo hadday khayr tahay inay ummadda gaarsiiyaan waxa loogu baaqayo waxa laga rabo waxaan ka codsanaynaa inay gaarsiiyaan oo ku celceliyaan barnaamijkaas abiilka ah siday ummadda Soomaaliyeed iyadoo isugu gurmato guud ahaan shacabka degan deegaankana ay isugu gurmadaan waxaan ka codsanaynaa inaysan hadalka naga yarayn hadalka iyagu waa badan yahay laakiin nuxurka inay noo fidiyaan oo qof kasta uu fursad u helo hadduu shaqo kale ku jiray xataa saacadu shaqeynaya maan saacada kale inuu daawan karo aad baan ugu rajo weynahay midiya ka shaqeeyo Jubbaland inay noo fulin doonaan insha Allah sababtu waxa weeye intaasba waxay u noqonaysaa xogaaga bixin lahaayeen inta nooga dhigan aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa fursadda kalena waxaan siinayaa siyaasiyiinta iyo wasiirada iga dambeeya